بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii qisadii maantii gaaldiid oo aynu kusoo qaadan doono insha allahu tacaala qisadii ninkii arkay sadkii iyo xidheenkii uu dhisay dulqarnayn raximahullah ee lagu awday ama lagu xidhay yuuj iyo maajuuj ama labada ummadood ee la dhaho magacooda yuug iyo maayuug. waxaa jira xadiid uu soo warinayo ama uu soo saaray ibnu jariir atabari raximahullah kitaabkiisa tafsiirka. xadiidkaasi wuxuu leeyahay qataada baa wuxuu dhahay waxaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nin baa yidhi ma og tahay inaan arkay sadkii ama xidheenkii yuuj iyo maajuuj. subxaan allah. deetana nebigu wuxuu dhahay haddaad aragtay incathu li ii sife. ninkii baa markaa sifeeyey oo wuxuu yihi kalbardi lmuxabar, waxaad moodaa sida baraf yacni khadadleh oo kale, meel baraf oo kaleo khadadleh oo kale. wuu sii caddeeyey khadadkaasa wuxuu hi ariiqatun sawdaa wa ariiqatun xamraa, layn casaana, layn midabkiisu casiya guduudan yahay ama madow yahay. deetana wuxuu yidhi qad ra'aytuhu, waad aragtay buu dhahay nebigu. xadiidkaas markaa ibnu jariir atabari baa kitaabkiisa kusoo saaray tafsiirka, ibnu kathiirna sidoo kale kitaabkiisa kusoo saaray. wuxuuna ibnu kathiir uu leeyahay raximahullah xadiidkaasi waa xadiid mursala. axaadiista mursalkaina waxay ka mid yihiin kuwa daciifka. markaa waxaa kaloo jira dhacdo kaloo la yaab leh iyo nin kaloo yidhi waxaan arkay meeshii ay maaragtay lagu xidhay ama sadkii yuuj iyo maajuuj ee dulqarnayn uu dhisay. ninkaa waxaa la dhihi jiray magaciisa salaama tarjumaan. salaama tarjumaan waa nin noolaa xilligii dowladdii cabaasiyiinta, wuxuuna ahaa nin safaara oo safaro badan geli jiray. waxaa la tilmaamaya inuu 30 luuqadood meelaha uu ku hadli jiray. marka qisadiisana waxaa soo saaray yani idriisi, juqraafistihii la dhihi jiray idriisi baa kitaabkiisa nushat lmushtaaq fi ikhtiraaqi ilaafaq kusoo saaray. ibnu khardadayhi ayaa kitaabkiisa masalik almamaali kusoo saaray. ibnu kathiir raximahullah ayaa kitaabkiisa tafsiirka ku xusay. suyuuti baa sidoo kale isna xusay. yaquut alximawi ayaa isaguna xusay. marka qisadiisu maxay ku bilaabmaysaa? waxay ku bilaabmaysaa ninkii khaliifka u ahaa dowladda cabaasiyiinta oo la dhihi jiray waathiq billaahi ayaa riyooday baa layidhi. subxaan allah. muxuu ku riyooday? wuxuu ku riyooday sadkii ama xidheenkii yuuj iyo maajuuj oo furmay iyo yuuggii iyo maayuugo soo baxaya. subxaan allah. ayuu ku riyooday markaa ninkii waathiq la dhihi jiray, wuxuuna ahaa khaliifkii cabaasiyiinta. kolkaasu wuxuu u yeedhay ninkii la dhihi jiray salaama tarjumaan. wuxuu ku yidhi waxaad tegaysaa meesha sadkaasi uu ku yaallo, warna waad iiga keenaysaa. salaama turjumaan baa wuxuu yidhi waan baxay oo waxaa laygu daray buu yihi 50 nin. waxaa kaloo uu siiyey lacag gaadhaysa 5,000 diinaar. waxaa kaloo uu siiyey diyadaydii iyo magtaydiina wuu siiyey oo ah 10,000 dirham, 10,000 dirham buu siiyey. waxaanu u faray in qof kasta oo aniga ila socda 50 nin la siiyo 1,000 dirham, yani 50,000 dirhamna oo kalena waana la siiyey. waxa kaloona la siiyey buu yidhi arsaaqadii aan cuni lahayn 6 bilood nagu filan. waxaan qaadanay buu yidhi oona la siiyey 200 oo baqlood, fardihii ay ku safrayeen dabcan, oo aanu ku xambaaraynay buu yidhi saadkii iyo biyihii aan isticmaalayn. kadibna waxa aan ka baxnay caasimadii dowladdii khulafada cabaasiyiinta ee sura man ra'a la dhihi jiray. waxaana warqadna loogu qoray ninka la ydhahda abi isxaaq bin ismaaciil oo isaguna ka talinayay armenia. dabcan armenia se u fogta way ujeedaan. armenia yurubta bari bay ka midta. dowladda cabaasiyiintu xilligaas subxaan allah waxay ahayd maxay? dowlad aada u weyn. yurub bay ka talin jirtay, africa ka talin jirtay, asia ka talin jirtay. dowladdii adduunka ugu weyneyd bay ahayd run ahaanti. subxaan allah. marka ninkii armenia joogay ayaa isaguna warqad buu u qoray maxay magaalada sarar oo aan sii maraynay. surar ama sarar ama sariir intaba waa qoraal ahaan way jirtaa magaceeda. meeshaas markii aan tagnay isna warqad buu u qoray magaaladii kale nagu xigtay oo ahayd
magaalada la dhaho laab kii laab ka talinayana isna warqad buu u qoray meesha la dhahdo fila nashaah subxaan allah kaasina warqad buu u qoray maxay magaalada khazar ama khazariyiinta boqorkii khazariyiinta ayaana marti qaaday buu yidhi kullu haada waxaasoo dhan waxay ahaayeen waa badhasaabyadii iyo guddoomiyadii gobolada ee markaa hoos imanayay dowladdii weyneyd ee khilaafadii ama cabaasiyiinta marka wuxuu yidhi markii aan boqorkii khazariyiinta aan u tagnay habeen iyo maalin ayaan la joognay kadibna wuxuu nagu daray ninkaasi 50 nin buu nagu daray oo wadada na tusaya meeshan ku socona na tusaya marka waan dhaqaaqnay buu yidhi 25 maalmood ayaan sii soconay waxaan gaadhnay dhul madow ardun sawdaa dhul madow baan gaadhnay oo raa'ixadeeduna ay tahay mid uraysa macnaha urteeduna aad bay u uraysa buu yidhi subxaan allah wuxuu markii horena saad ahaan waxaan usii qaadanay cadaro badan iyo barfuun oo waana loo sii sheegayo kaasaan maaragtay aan urursanaynay buu yidhi si aan uga gudubno magaaladan ama dhulkaas kadibna waan soconay buu yidhi muddo 10 maalmooda ayaan soconaynay waxaan gaadhnay dhul kharaaba yacni dhul la burburiyey oo la kharaabiyey subxaan allah meeshaasaan waxaan soconaynay haddana 27 maalmood oo kale dadkii magaaladaa joogay baan weydiinay oo waxaan idhi dhulkan maxaa helay oo burburiyey oo baabi'iyey waxay nagu dhaheen meeshan waa magaalooyinkii ay cagta mariyeen yuug iyo yamaayuug walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin waa meeshii ay cagta mariyeen ee fasahaadiyeen weeyaan subxaan allah kadibna wuxuu dhahay waan dhaqaaqnay waxaan tagnay meel dhufaysa dhufaysku waxa weeyaan waa magaalo dhufays leh dhufaysku waa derbi ama gidaar magaalo kastaaba waagii hore derbi iyo gidaar kusoo weegaarsan bay dee lahayd oo ay cadowga iskaga ilaaliso markaa dhufays baan galnay meeshaa dhufayska ah waxaa agteeda ah buu yidhi buur weyn ayaa ahba ayuu yidhi subxaan allah magaaladaas wuxuu yidhi waxaa deganaa dad ku hadlaya luuqadda carabida iyo luuqadda farisiyiinta ku hadlayay muslimiin bay ahaayeen qur-aankay akrinayeen masaajiday lahaayeen waan la yaabnay buu yidhi meeshaasi siday uga fog tahay caalamka islaamka haddana waan weydiinay waxaan idhi maxaad ku islaamteen waxay dhaheen nin baa noo yimi kiibaa markaa mudduna la joogay ninkaasaan na islaamiyey qur-aankuna baray diinta islaamkuna baray marka subxaan allah sidaasaan ku baranay bu ayay dhaheen ilaa iyo haddana waan iska soo dhaxalnaayo waan baranaa qur-aankii iyo carabiyadaba buu subxaan allah dabadeedna wayna weydiiyeen qoomkaasiyo waxay nagu dhaheen war xaggaad ka timaadeen ama xaggaad ku socotaan waxaan ku nidhi ciraaq baan ka nimi subxaan allah oo waxaana soo diray amiir ilmuminiin waathiq ninkii la dhihi jiray ee amiir ilmuminiinka ahaa subxaan allah dabadeedna wuxuu yidhi waxay la yaabeen amiirilmuminiinka ninkan madaxda u ah dowladda waxay ku dhaheen ma nin dhalinyaro ahba mise waa nin waayeela waxaan nidhi buu yidhi waa nin dhalinyaro ah weeyaan subxaan allah waxay dhaheen oo halkuu joogaa waxaan ku nidhi ciraaq buu joogaa magaalo la dhaho sura manra wuxuu hi weliga iyo abinka iyo maanaan maqal meeshaad ka sheekeynaysa iyo ciraaq iyo sura manra wuxuu dhaha waan dhaqaaqnay waan ka soconnay waxaan aragnay buur amlas jabalun amlas buur maaragtay dhadhaaba oo wax allaale wax ka baxaya aanay jirin waa dhagax saa u malaasan subxaan allah oo aan dhir ka bixin iyo caleenba aanay ka bixin halkaa agteeda waxa ah waadi ama waa tog balliciisu yahay 150 diraac buu yidhi meesha waxaa agteeda ah ama ka taagan qoryo dhaadheer oo qorigii kastaaba balliciisu uu leegyahay 25 diraac subxaan allah waadiga markaa agtiisa waxaa ku yaalla haddana buur kale oo ah buurtii sadka ama xidheenka buurtii lagu xidhay sadkii ama xidheenkii yuuja maajuuj lagu xidhay subxaan allah waa yahay wuxuu ihi halkaas waxa ah albaab weyn albaab aad u weyn oo 2 fardadood leh 2 fardadood yacni fardaduhu waxa weeyaan albaab maaragtay 2 albaab buu ka samaysan yahay oo iska hor imanaya marka albaab weyn ayuu leeyahay waxa kale oo meesha ka dhisan jaajuur uu yidhi leban ama jaajuur ka dhisan birta xadiidda iyo naxaasta ayaa meesha ah buu yidhi subxaan allah albaabka balliciisu waa 50 diraac dherarkiisu waa 50 diraac waxaa dusha kaga xidhan quful dherarkiisu yani dherarkiisu uu leegyahay 9 diraac
subxaan allah dhulka wuxuu ka kacsan yahay qufulkaasi 25 dirac waa quful aada u weyn weeyaan waxaa agtiisa yaalla furo weyn oo dherarkiisu leeyahay 1 diraac iyo badh 12 ilkood oo yaryarna leh 12 shurfo yani daloolo yaryarna uu leeyahay oo mala waxaa lagu furay wala quwwata illa billah mala albaabka yuugi iyo maayuug baa lagu furaya waa tan garan weyne marka subxaan allah calaa kulli xaal wuxuu yihi meesha waxaa dusheeda ah shurfooyin shurfadu waa guryo yaro baranda yaryar oo guriga dushiisa ku ah baa ah ayuu yidhi subxaan allah maalin kastoo jimcaha waxaa soo baxa 10 nin qaryada ama magaaladii dadka muslimiinta ay deganaayeen 10 nin fawaaris 10 nin oo maaragtay kamida fardafuulayaal baa farday soo kaxaystaan biro dhaadheerna way soo kaxaystaan albaabkan birtaabay ku garaacaan markay garaacaan waan weydiinay maxaad sidan u yeelaysaan waxay dhaheen waxaan ugu talagalnay waan iska soo dhaxalnay arrintano waxaan ugu talagalnay inay dadka ka dambeeya meeshaas ay ogsoonaadaan inaanu ilaalinayno oo dhufayska aan ugu jirno marka wuxuu yidhi markay birta ku garaacaan way dhegaystaan oo waxbaa meesha kasii hadlaya oo kasii sanqadhaya bay dhaheen cod aynaan garanaynin subxaan allah wuxuu yidhi halkiia waxaan kaloo ku aragnay hareerteeda hadhaagii waxyaalihii laga sameeyey birta xadiida iyo birta naxaasta iyo jaajuuradii waxyaalahaasna waan aragnay subxaan allah kadibna waxaan weydiinay waxaan ku nidhi weligiin ma aragteen qaar ka mida yuug iyo yamaayuug waxay dhaheen laa xawla walaa quwata illa billah waxay dhaheen waan aragnay yuug iyo yamaayuug qaar ka mida oo saaran waxay saarnaayeen shurfadii ama barandaha dusheeday soo fuuleen subxaan allah kadibna dabayl madow ayaa timiyo meeshoodii bay ku celisay subxaan allah waxaan ku nidhi oo sidee bay ahaayeen waxay dhahay qiyaastoodu waxay ahayd markaan aragnay 1 taako iyo badh laa xawla walaa quwata illa billah ilaah waa nagu soo saarin 1 taako iyo badh shibrin waaxid wa nisf 1 taako iyo badh waa dad aada u yaryar weeyaan markaa dabcan yuuji maajuuj waa ibni aadam sida nabigeena uu noo tilmaamay xadiiska saxiixana uu tilmaamay waa caruurtii nebi aadam ayay ka mid yihiin laakiin dherarkeedu intuu leegyahay qola waxay dhaheen waa rag waa kuwa waaweyn oo fedho waaweyn kuwa waa kuwa gaagaaban oo sida taakada iyo wax kasii yar subxaan allah kuwa kuwii dhahay maxay dhaga dhaadheer bay leeyihiin midna way ku seexdaan midna maaragtay sida bustaha ay dusha iska saaraan kullu haadaa waxay ka mid tahay maxay waxyaalaha aan sugnayn weeyaan marka marban insha allahu tacaala qisadiisi iyadoo tafaasiirteedii wadata aan ka warrami doona marka isagu wuxuu dhahay waxay nagu dhaheen shibran wa nisfa gebigooduba taako iyo wax yar bay la egyihiin marka subxaan allah markii aan waxaasoo dhan qoray buu yidhi salaama tarjumaan dib baan isaga soo noqonay waxaan imi samarqand waa beledka ama dhulkii khuraasaan tajakistan iyo dhulkaasay ku taallaan dabadeedna saadkaygii baan soo qaadanay nin la dhahda cabdillahi ibnu daahir baan u nimi kiibaa 100 kun oo dirhamna siiyey waxa weeyaan nin kastoo annaga naga mida lacagtii baan u qaybiyey buu yihi maalin walba fardafuulo kastoo annaga naga mida 5 dirham buu helayay ka lugeynaya 1 dirham ayuu helayay ilaa aan kasoo gaadhnay magaalada rayina haddana aan kasoo dhaqaaqnay waxaa nimi sura man ra-a caasimadii dowladda cabaasiyiinta safarkaasina wuxuu qaatay 28 bilood macnaha 2 sanadood oo buuro ah ayuu qaatay subxaan allah deetana khaliifkii baan warkii wixii aan aragnay aan u sheegnay marka subxaan allah saasuu tilmaamaya marka waxaa kaloo tilmaamaya sii socodkii dhowr iyo 24 qof baa naga dhintay soo socodkii dad badan oo kale iga dhintay yacni waxyaalo fara badan meeshaasi halkay ku taallaa haddaba dabcan meeshaasi waxay ku taallaa waa la isku khilaafay culummada badankoodu qola waxay dhaheen waa bilaada turk dhulka turkiga oo turkigaba waxaa la yidhi turkiga waxaa loogu bixiyey waa kuwii lagaga tegay maxay waraa sad yacni xidheenka sadkan ama xidheenkan ayaa lagaga tegay baa la yidhi oo deetana turki baa loo bixay oo waxay turkiga laftigooda ka mid ahaayeen yuuj iyo maajuuj ama yuug iyo maayuug nacuudu billah marka turkiga waddankan turkiga la yidhahda maaha turkiga waagii hore waxaa looga jeeda waddankan turkiga la yidhahda maaha way ka duwanta waxa weye turkiga waa dadka indhayarta ah ee degan maaragtay china way gaadhi karaan laakiin wadamadan iminka la dhahda laisku dhaho maaragtay turkmenistan tajakistan uzbekistan
wadamada maaragtay ayaa dadkii deganaa ama dadka turkida asalkoodu meelahaasunbay kasoo jeedaan laakiin waddankan turkiga ma aha sidaa ha u fakerina marka waxaa kaloo lagu tilmaamay oo mufasiriintu ay ku tilmaameen meeshaas inay ku taallo waddanka armenia iyo azerbaijan dhexdooda inay ku taallo yacni waxaan dhihi karaynaa way isku waafaqeen culammada mufasiriintu in meeshaasi ay ku taallo maxay bilaada turk meelaha armenia azerbaijan tajikistan turkmenistan wadamada maaragtay ustaanka u dambeeyo aagaasunbay mid walba uu ku tilmaamaa ama badankoodu ay ku tilmaamaan marka dabcan qiso dheer baa jirta tafaasiil dhaadheer baa jira axaadiis saxiixa jira aayaad qur-aana baa jira wax sugan baa jira waxyaalo badan oo aan sugnayna way jiraan kullu haadaa insha allahu tacaala darsi intan ka dheeraan doona ayaan ku faahfaahin doonaa haddii ilaahay ka dhigo iyo sidoo kale shubahaadka waxaa jirta waxaa la dhahda shubahaad ismoodsiin oo ama maaragtay mustashriqiinta iyo ama kuwa gaalada ah ee dadka kusoo dhex tuuraan ama muslimiinta dhexdeedu ay isweydiinayaan maxay cunaan dadkani horta maxay cunaan yuga iyo mayug ma dhulka hoosteeday ku nool yihiin ma dad yaryarba ma dad gaagaabanba subxaan allah ma ibni aadan ba mise waa xayawaano ma jinba halkay joogaan adduunka o dhan maalin walba waa la arkay wax halaaliya waxa ku dhex jira xaggay jiraan kullu hada waa shubahooyin insha allahu tacaala darsiga soo socdaan ku waadixin doonaa markaynu soo bandhigi doona jazakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu